بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ولليال سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى هينا أقبل عمل كيني ونكسنا بشي رمضان صونك صلاة صدقة الله إنك أقبله. حنقول تلقى الله فيديو إن إذنكو أجيسينو قارها ولا لها غير مريكان إن أنصاص عن هديو الله لهذا. أنيقا إيو صاحبة إذا نلاشا هبا عمر قيلة. waxaan imaanaynaa insha Allah magaalada Minnesota, waxaan tagaynaa Seattle, waxaan tagaynaa Ohio insha Allah, oo aan rabno in aan gaarsiino hay-adan waxa ay ka shaqeyso oo ah kobcinta iyo suurtagelinta in la helo guryo wanaagsan, lamaane isfahmay, nolosha isla ambaqaaday, iyo dad cusub oo diyaarinaya runtii sida ay u gali lahaayeen nolosha qoyska. Marka waxaan aad idinku yeerayaa insha Allah ta'ala inaad ka soo qayb qaadataan kulamada la qaban doono insha Allah ta'ala. waxaan sidoo kale bixin doonaa koorsooyin 6 course ayaan bixinaynaa hadii la yiraahdo, waayo koorsada waxay ahayd 12 marka hal module ayaan idin keeni doonaa biidnillah. waxaan aad rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan. waxaa kamid ah module-kaasi koorsooyinka, waxaa kamid ah kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka, waxaa kamid ah management-ka, finance-ka, waxaa kamid ah tarbiyadii hore iyo sidii loo soo koray, waxaa kamid ah maxaan ku raadayay in la fahmo xididka iyo qoyska. inta kale waxaan rajaynayaa waxay noo sheegi doontaa iyaduna Hiba Cumar. kusoo dhawaada, barakallahu fiikum. bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. walaalayaal soo dhawaada meel walba aad joogtaan. waxaan rabnaa inaan idin ogeysiino anagoo aabahada Happy Marriage Academy hay-adan in aan idinku imaanayno Mareykanka biidnillahi al-kariim samarka oo bishan July ah. idila soo joogi doona xoogaa. waxaan idin wadnana waxa weeyaan runtii waa barnaamij aad u qurux badan oo wanaagsan oo ah sidee qofka kale ugu baran lahaa, sidee loo wada noolaan lahaa, sidee loo garan lahaa noloshan maanta lagu jiro nolol ka duwan oo ka macaan oo ka qurux badan, sidee dhalinyartu ay u ogaan lahaayeen qofka ay dooranayaan, qofka ay rabaan inay caruusaan, maxaa se sugaya nolosha sugaysa, marxalado ayay maraysaa, maraaxiishaas inay bartaan waxyaalo fara badan, bancasharo fara badanna waa idin wadnaa aad ku baran doontaan biidnillahi al-kariim. dadkii kala faa'iideysta inaan noqono, yimaada kasoo qayb gala, maaragtay asxaabtiina gudbiya, qof walba oo guur ku jira amba raba inuu guursado, amba gaadhay da'dii lagu guursanayay, casharkan waa anfacayaa. waxa weeye noloshu way isbedeshay, muxaadarooyin boqolaal baa lasoo dhageystay, laakiin waxaa la rabaa in cashar ahaan loo qaato. annaguna waxaan samaynay koorso 6 cashar ka kooban, 12 weeyaan, laakiin 6 cashar ayaan idin wadnaa. 6da kalena waa idin keeni doona hadduu ilaahay idmo. communicationka, isfahanka, maaragtay relationship wuxuu yahay sidee loo horumariyaa, wax walba oo lagu dadaalo oo barasho loo galo ayaa maaragtay miro fiican ay ka soo baxaan. walaalayaal rag iyo dumarba waad idinku soo dhaweynaynaa barnaamijka. jazakumullahu khayr. ilbaxnimana waa idinku ognahay heer Mareykan hadaad tihiin, wax badan ayaan warkiina haynaa, waa idin soo soconaa. kuwii kala faa'iideysta ha noqono. jazakumullahu khayr.